daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee Toosane Technical. Sida caadiga ah, WhatsApp wuxuu leeyahay muuqaal iyo kalar u gaar ah oo cid walba taqaan, sida noocan oo kale. Balse WhatsApp cusub waxay ku soo dareen inaad WhatsApp-kaaga ka dhigin kartid kalarka aad doonayso. Xitaa haddii aad xiisaynayso kubadda cagta kooxda aad taageerta ayaad ka dhigi kartaa icon-ka WhatsApp-kaaga. Waxayna ku soo dareen horyaalada afarta ah kooxaha waaweyn sida Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Juventus, Liverpool, Man City, Bayern Munich iyo Borussia Dortmund. Kooxda aad taageerta ayaad saaran kartaa. Marka aad doonayso inaad luqadaada luqad aanan ahayn qof kale wax ugu qorto sida luqadda Carabiga, Turkishka iyo luqadaha kale, WhatsApp-kii hore waxaad ku khasbanaan jirtay inaad gebi ahaanba luqadda aad ka soo bedesho taleefankaaga. Balse WhatsApp-ka cusub isla WhatsApp-ka gudihiisa ayaad luqadda ka bedelanay adigoon saameynin taleefankaaga luqadda kala saaran. Tusaale ahaan, haddii taleefankaaga uu saaran yahay luqadda Englishka ah, WhatsApp-kaaga waxaa saaran kartaa luqadda Carabiga oo ma saameyn doono luqadda saaran taleefankaaga. Haddii aad doonayso inaad saaxiibkaaga caaba 2 saac fariin u dirto aadna tahay qof aad u mashquul badan, ha ka walwalin saaxiibkaaga hadda ayaad fariinta u diri kartaa. Oo WhatsApp-ka cusub wuxuu kuu ogolaanayaa inaad fariinta diyaariso kuna save gareyso waqtiga ee bixi lahayd iyo taariikhda maalintaas ee tahay. Balse waxaa shardi ah in caaba 2 saac oo taleefankaaga internet leeyahay. Iskeeda ayayna fariintaas isku diri doontaa, gaari doontaana saaxiibkaaga waqtiga aad ugu save gareysay inay fariinta baxday. Haddii aad ku caajisto la sheekaysiga asxaabtaada WhatsApp-ka cusub waxaa lagu soo daray inaad ka dhageysato isla WhatsApp-ka gudihiisa waxyaabaha maqalka ah ee taleefankaaga kugu jira sida quraan, xadiis, nashiido iyo wixii la midka oo aad markaad xiisaynayso. Font style nooca ee fartaada noqonayso. Marka aad doonayso inaad iska bedesho nooca farta sida Roman, Arial iyo faraha la midka ah, waxaad ku qasbanaan jirtay inaad gebi ahaanba taleefankaaga aad ka soo bedesho farta saaran. Balse WhatsApp-ka cusub waxay ku soo kordhiyeen in font style-ka aad WhatsApp-ka gudihiisa aad ka bedelan karto oo aad farta aad doonayso aad ka dhigato adigoon wax dhib ah aanan marin. Haddii aad danaynayso muuqaalkan adigaan kuu duubay daawasho wacan. haddii aan ku tuso 5 qodob aan kuu soo tiriyay, waxa ugu horeeyay in icon-kaaga WhatsApp-ka aad ka dhigan kartid kalar kala duwan ama kala kooxda aad jeceshahay. Fadlan xulo WhatsApp-kaaga, settings-ka qaybta midig gacantaada hoos ka xulo, tag meesha ay ku qoran tahay Universal. Markaad Universal xulato kadib ka tag Style, kadib hoos ma waxaad xultaa Launcher icon. Markaad xulato kadib waxaad arki doontaa kalar qurux badan oo WhatsApp ah ee ku soo dareen qolada WhatsApp-ka gadatay ee Facebook-ga. Waxaa ku jira sidoo kale kooxaha waaweyn ee Ingiriiska sida kooxaha kale oo waaweyn ee sheeg Spain iyo kuwa la midka ah. Tusaale aniga waxaan iska saaranayaa Liverpool ma taageer laakiin caadi aan u saartay. Marka saarid kadib fiiri aniga hadda waa sii boobsina cashirka qaybta labaad u gudbaa. Waxaan ku tusaa qaybta labaad oo ah app language. Xulo settings Universal, xulo settings si xulo. Meesha waxaan u jeedaa app language luqadda aad saari kartaa. English aad saarto tusaale aniga Carabiyan u bedelaa. Carabiyan saara hadani Carabi saar meeshan. Kadib aan fiirino waxa iska bedelay WhatsApp-ka. aan fiirino banaanka ugu bax WhatsApp saan u soo arkay doosaan wixii isbedelay wixii kale aan arkayaan doonaya. Marka WhatsApp kadib ugu soo laabto password weydiinaya password geli. waxaad tagtaa qaybta settings-ka gacantaada midig qaybta hoos. kadib waxaad ka xulataa waa kana Carabiga al-kullu xulo waa isbedelay. al-kullu waa Universal. kadib settings xulo waa kana luqadda tatbiiq waa app language-ka meesha Carabi aan isku bedelay qoraalka saas isku bedelaa. kadib waxaad ka doorataa English. midkan English ayuu noqday inuu asal ku soo laabtay in kala aan fiiriyo app language inuu ku soo laabtaan rabaa back dheh. okay settings gacan soo laabtay oo ku lahaa app language oo jeedin. qayb saddexaad hadaan gudbo waa qaybtii aan rabay inaan ku tuso schedule message inuu iskis isku diro. gacanta midig saddexda ilaa ka xulo schedule message xulo window ayuu ku keenaa calaamadda balaaska taawo. qaybta sare ee qoronta name waa qofka u diraysid message-ka oo iskis isku diri doono magaciisa ama qofka u dirabto. tusaale oo kale meeshan aad aniga waxaan u diraa qof ay u qoran tahay Toosane Technical. kana aan soo qabto kan
ku dhufo qaybta labaad waxa ku qoran type your message kaaga qor waxa qofkaas u diri lahayd ayaa meeshan ku qoraysaa tusaale waxaan ku qor meeshan aniga assalaamu calaykum markaad imaato isoo qabo oo kale يعني tusaale qaybtan kan waxa qoranaysaa dheedka ina u baxa arabtid sagaalka oo aan siina maanta taxade afwan ahad meeshan time-ka ay gili su'aal meeshan 2 saac ku buuxinaa 2 saac message-ga asa isdiray marka qof diray malaha iskiisu u baxa waa laakiin inuu internet inuu helo loo baahan yahay qaybta hoos waxa qoran waxa xulinaysa ay qorantaa schedule xulo kadib waa ka meeshan ayuu ku jira message-kan markii saacad la gaar ayuu bixi doonaa okay qaybta afraad waxay ahayd waa ina aragtaa in teleefankaaga WhatsApp-ka gudihiisa ka dhageystid codka aad doonayso ama xarabtid sida u jeedid calaamadaha wax laga dhageysta ayaa kor ku saaran gacantada midig qaybtaas u jeedid calaamadaha tusaale kale meeshan aan hadaan taabto kale music ayaa internet meeshan taawo kana meesha ay ka socodsiin kartaa hada gudaha ka daarnays meesha ayaa marka ka ogaan kartaa inay ku socdaan in kale hada mood script labada gees taawanay qaybta ugu dambayso waa font style universal style xulo kadib waxaad xulataa font style waa ka marka intaanu faraha ku jirto mid daarabtid mid ku qanciso isleedahay qofkan qoraalka uu fahmi karaa ama isleedahay way qurxan tahay ayaa dooran kartaa mid daarta dooran kartaa aniga hadda maraba inaan far doorto sida default-iga caadi isaga dhaafana maxaad ka faa'iiday muuqaalkan fadlan qaybta faalada ah nagu dhaaf haddii aad ka heshay muuqaalka like saar haddii aadan kamid ahayn bahda Toosane Technical fadlan nagu soo biir oo subscribe dheh furo calaamada gambaleelka ah si ay kugu soo dhacaan muuqaal walba aan soo gelino lana wadaag asxaabtaada inta wixii ka dambeeyo isi faraxsanaada